duqa magaalada Boorama Salebaan Xasan Xadi oo maanta waraysi gaar ah telefishanka caalamiga Ariel TV ku siinayay gudaha magaalada Boorama ayaa ugu horeyntiiba waxaan weydiinay bal inuu tafaasiil dheer uu ka bixiyo sababtii xukuumadda Somaliland ay maalinimadii shalay ahayd isku hortaagtay ugaaska guud ee beelaha Gadabuursi ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi Mayor Salebaan Xasan Xadi ayaa sheegay in maanshiyaha ugaaska guud ee beelaha Gadabuursi uu ku soo beegmay xilli buu yidhi hoggaanka dhaqanka gobolada galbeedka Somaliland ay ku kala afkaar duwan yihiin arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka aad baa mahadsantihiin halka ugaas Cabdirashiid waa ugaaskii guud wax culus oo ku iman kara ama hawl culus oo la qaban kari waayo runtii ma aha in miiqaankiisa hoos loo dhigo sharaf iyo karaamana waa naga mudan yahay waa dalkiisii waa dawladdiisii dadkiisu Etoobiyana way joogaan Djibouti way joogaan Somaliland way joogaan imaatikiisa horta wax la hor taagay ma imaatikiisu lama hor istaagin laakiin marxaladda uu ku soo beegay baa ahayd marxalad gobolka ama degmada dadka jooga ay afkaarta siyaasadeed ee xagga saamiyada iyo doorashooyinka ku kala afkaar duwan yihiin xogaa khilaaf arrimo dhaqana ma arrimo dhaqan oo hoggaanka dhaqanku ee gobolku sharafta mudan ay ku yar kala duwan yihiin taasa marka xilligan ku soo beegay ay ahayd xilli aan u diidayno in shaarkiisa nadiifta ah la taataabsiyo waxaanan u qalmin runtii waxaan u aragnaa arintani inay tahay arin hoggaanka dhaqanka ee fikirkani ku yar kala duwan laftoodu ay dhamayn karaan oo hoos u dhamayn karaan oo la oranayo ileen kani waxbaan doonaynaa iyo kan kale labaduba wuxuu wada doonayaan laakiin fikirku ma loo kala duwan yahay inay hoos u dhamaysan karaan wax culus ay leeyahay iyagoona isku tegin oo waxba is weydiin in ugaaskiina ku soo dul dhaco wixii oo aan isku nidaamsanayn waxaan u diidaynay inuu nagaga milmo runtii karaamana waa u haynaa wax laakiin lagu hor istaagimay jirin arintanu ma lahayn ka dhowrsoonow deewana waajib oo xukuumadda waajib ka saaran wax meel kale ka yimidna ma waa ka maamul ahaan maadaama aan xogtii iyo guntii aan ognahay ayuu ma noogu talagalnay in kulay loogu talagalay in hadii la yiraahdo hawsha aanay khilaaf kale oo hor leh ayna nagu aboorin waayo salaanta qaar baan weydiino waxay dhaayeen u yeedhista ugaaska mar dambaan maqalnay oo dalabku annagii yar kala duwaneeyeen baa dalabku qayb naga mid ah ka yimi ayaan in malaha wax quruxda idinkoo wada socday inaad maad garaysaa marka ugaaskana lama celin waa dalkiisii xilliga ay ku haboonaatana iyadoo dhameystiran oo xukuumad iyo shacbi loo dhameystiran yahay ayaa loo yeeri doonaa halkana laga ma celin karo waa dalkiisii way laakiin marxaladda hadda uu ku soo beegay baanu ayay isagana ay u wanaagsaneen dadkana u wanaagsaneed oo yeenan waxa meel kale uga yeerinay odaga ugaaska wax guud baynu ugu yeernaayo aad u culus wartan iyagoo hoggaanka dhaqanku ay hor fadhiistaan ayaa bay dhameyn karaan umaanile wax kale oo dhibi meesha ma taalo dhanka kala duqa magaalada Boorama Salebaan Xasan Xadi waxaan weydiiyay bal inuu wax xidhiidh uu ka dhaxeeyay isaga iyo ugaaska guud ee beelaha Gadabuursi ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble ugaas Doodi waxaana uu ku jawaabay ugaaska aad baan anagu saaxiiboonahay hore berigii hore meerka hore ahaana waan soo dhaweeyay si fiicanna waan isku naqana saaxiibana waan nahay laakiin waan isku tareegareeyay inaan la hadlo laakiin way suurtagali wada inaan la xidhiidho waan isku daway baryahan anigoo marka hore baa Hargeysa iyo hawlo geeriyaan halka u tagay ku maqnaa haddana waan isku tareegareeyay inaan in fact la xidhiidho way ii suurtagali wada laakiin waxaan hubaa kullee wixii aan la ii sheegay ahayd ama aynu wada ogsoonahay arrimaha lagu kala duwanaa inay tan ahayd imaatikiisu ay ahayd inatana waxaan aad uga xumayn ugaasku isagii oo soo dhaqaaqay inuu wixii u yimi ay yacan dadku ku kala duwanaadaan marka shalay toole markii dhalinyarada ay godooday wax arkaysa wadooyinka magaalada halboolaha ahaa oo gabi ahaanba la gooyay maxaa keenay sababahaas in mar walba oo mudaharaad dhaco dadku ay wadooyinka ay ku jeestaan طبعا waxa weeyaan dhalinyarada hadii aan la jihayn ama marxalad xun soo ama si caadifadaysan wax loo galiyo waxa weeyaan wax walba way sameyn karaan
marka dadkii anu maanta yani sida ay wax u dhaceen waxaan aaminsanahay wax badan bay tureen laakiin dadku waxay og yihiin mar walba waxa laga cabanayaa wadooyinkii markaan dhisnay ee daamir ay tahay ee lagu dul shido taayirre iyo dab waa ogtahay sida wadooyinku noqonayaan marka waxay dhalinyarada dadka qaar baa ku jihaynaya halkan guba maxay kala soo qaatay laakiin shalay wax badan bay noo iftiimisay xaaladii dhacday waxa weeyaan dhammaan meheradaha laamiyada ku soo jeeda gaar ahaan banjarlayaasha oo dhan waa dadka taayirada laga qaato qaarkood baanu calaamadaynay oo runtii taayirada lagu gubay laga soo qaadanay qaarkoodna wuxuu way xafidanayeen marka waxa weey taaliftiga talaabanu ka qaadi doonaa meelaha mainka ah wadada mainka ah cid ku soo jeedo oo dhan oo aan doonay maanta inaan kaga faa'iideysto laguma arki karo banjarle marka hore waa noo qorshaysan in la geershada inaan banaanka u saarno banjarle laguma arki karo ku soo jeeda wadooyinka laamiga ah haddaana wuxuu hadii kala shuruud adag bay yeelanaysaa taas waxa weeyaan waa qodobka labaad ku jirana waxa weeyaan wadooyinka iyaguna dhagxaanta wadooyinka lagu gooyay jagooyinka banaan ee dhagxaantu isku dhex yaalaan ee caruurtu markayno waxaasoo mudaharadada noocaas ay sameynayaan ay dhagxaanta ka soo gureen wadada ku xidhayaan jaga kasta oo laami hormarayo haddii deer lagu xidhi waayo dawladda hoose la wareegaysa iyaduna taasina waxa weeyaan waxyaabaha nooga soo baxay because of dhagxaanta guri la dumin maayo jaga banaan baa laga soo qaadanay jagada cid baa leh cashuur xataa kama bixiyo waxaan waajib u leenahay anagoo raacayna sharciga oo ku mulkiyo dhulka inaanu kala wareegno dawladda hoosena ay isticmaashaa haduu la yiraahdo marka taasina waa fariin maanta halkan raacsanay haduu la yiraahdo marka kulay damage uu soo gaadhay dawladda ku xun iyo ku wanaagsanba ka mas'uula وعمران حسين آدن ورركة تلفزيون كعالمي Ariel TV بورما